somalilan ahna guddoomiyaha xisbiga kulmiye in uu borsayskii iyo waddadii xisbigu khaldantay oo ay dad dhagarqabayaali aan u malaynayo inay madaxweynaha ku guureen oo khaldeen waxaan runtii aaminsanahay madaxweynaha in la khalday oo waxaan jirin loo sheegay oo la mala awaalay oo la saaray waddo aan ahayn tii guusha iyo mustaqbalka xisbiga kulmiye uu ku sii jiri lahaa mudane madaxweyne dadka halkan fadhiya waa dadkii xisbiga gashaday dhiiggooda iyo dheecaankooda mudane madaxweyne xisbiga xoog kumaad qabsan xoolo aad leedahayna maad siisan waa halgankii iyo dadaalkii ay dadkani iyo juhdigii ay dadkani bixiyeen ayaad goobtaa iyadaa maanta ku gaadhay waxaannu rabnaa inaannu ku saxno haddii lagu khalday waannu ku saxaynaa mudane madaxweyne xisbiga raggii kaa dhaxli lahaa ee gaadhsiin lahaa himilada iyo hanka uu leeyahay ee uu noqon lahaa xisbi sii jira oo taariikh badan sii taliya waa ragga aad maanta leedahay yaanay soo gelin ee aad ka abaalka dhacday waxaad madaxweyne waxaan kaaga digayaa inaad noqoto abaalaawihii qarnigan waayo qarni kastaa wuxuu leeyahay nin ku suntan abaalla'aanta sida ay rag horeba tixaha ku tiriyeen markaa waxaan kaaga digayaa inaanad abaallaawe ku suntanaan oo aan lagu bixin abaallaawihii qarniga maxamuud xaashi cabdi waa nin aad garanayso wixii uu taray iyo wixii uu xisbiga taray iyo wixii adiga ku taray iyo wuxuu qaranka tarayba adiga ayaa nooga xogogaalsan ma aha ninay taariikhdu dafiri karto ma ahana nin maanta la odhan karo xisbigii ayuu dabadda ka joogaa horta waxaannu kuu sheegaynaa xisbiga cidina kaaga tegi mayso laakiin waynu ka raqsanaynaayoo dee gari laba nin kama wada qoslisee ragga maanta halka aad maaragtay joogto kula jooga ee beenta kuu sheegay ee waxaan jirin kuu sheegay ma aha rag kaa saari doona maalinta dambe oo soo socota adduunyadu waa maanta iyo shalay iyo berri shalay waynu soo dhaafnay maantana waynu joognaayoo adigan sida wuxuu wax u maamulayaa berriina way soo socotaa waxaa la yidhi nin baa wuxuu lahaa geel badan dabeedna uu isaga iyo xaafaddiisuunbaa iska maali jiray martidana waxba kama sii jirin xigtadana waxba kama sii jirin maalintii dambaa laga dhacay markaasuu marada soo raxay oo yidhi tollaahayey geelaygii baa la dhacay waaryaa maali jirey waxaa maali jiray baa la yidhi adigiyo naagtaada muusow berri waxaa iman doontaa waxaa maali jiray adiga naagtaada iyo afartan nacase ku yidhi enxaasheeri wallaahi kaama saari doonaan beelweynta halkan fadhida ee xisbiga kulmiye tacabka gashatay ee hantidiisa lihi waxay kuu tirinaysaa inaad dhac fara badan ka haysid marka hore waxaannu ahayn iyadoo aad dhacii beertii jenaraal cismaan dacas aad haysid ayaannu nidhi liqa oo doorta waannu ku doorannay waxaad ku dartay hudheelkii suldaan siciid iyo ganacsada jaawac karaaciin oo isagana aad xoog ku qaadday iyo reernimo waxaa kaloo kugu maqan diyaaradihii daala airline iyo alcarabiya labadaasina way kugu maqan yihiin waxaa kaloo kugu maqan hubkii aannu kugu wareejinnay ee beesha bahood oo aad dhinacii kale ee dhiggooda ahaa lacagtii u tirisay
iyadoo aan weli aanu gacantaada soo gelin waxaannu kaa rabnaa hubkii aad ku ballan qaaday dhowrka goor ee aanad waxa weeyaan weli lagaa haynin waxaa kale oo jirta tabashooyin fara badan oo aan halkan lagu soo koobi karin arrintayadu cabasho maaha muusanawna maaha waa garnaqsi haddaad diyaar u tahay inaad nala garnaqsato oo sidii rag isu qaban jiray waynu isu qabanaynaa sidii rag u kala bixi jirayna waynu u kala baxaynaa waxaannu rabnaa inaad nala garnaqsatid oo aad gogol dhigtid oo aynu kala jid qaadanno wallaahi xisbiga kaaga tegi mayno meel kaloo aannu u soconnaana ma jirto isagaannu kaa qaadaynaa isaga ayaannu kaa qaadaynaa waayo waa hantidayadii aad ammaano ku haysato dabeedna aad yadaysatid